نبي أيوب أو دليل نبي أيوب سديد يتوصلوا بكانها وقيد هوزي في مرنا إلهي طاعدي سيدك رقيسة مدينين ملك نبي رسولا والله اختباري تضبطي هبلوضوا لها مركلي الله قوض الدلي أو نفط الله قوض قبتي وسك الصبري تضبطي ويلوا لها أنا مركلي إسرائيل وسك الصبري باريه تجارتي حوله لها يودن مركلي الله قاضي وسك الصبري مركاسا جركيسي ولي من حنون لغو ردي وسك الصبري حنون نوعية قاري وعلى الجركي انتو دماضي هرقا يلا فاس كو دقن بس مركاسا وح اهلا وحا وصوها حاسكيسي مركاسا قرابتيسي كو يرادين اما مقالة ادقو نوغا بح اما اناكو هكاقا بحنا ماي انا انيغا فضوضو انيغا تغيي بوري اي تكوبيسي banaankaabay u saartay geed bay hoostiisa dhigtay 18 sano ayaa culimada qaar sheegaan ayuu geed hoos jiifay subaxdii bay ka tagaysay magaaladay u soo noqonayso dadkii u shaqeyn jirtay aqaladay ka shaqeyn jirtay leeyahay wixii mushqaayad la soo siiyay intay soo ugu soo iibiso khubz ayay iyo idaam ayay markaa nabiga ugu keenin jirtay geedka hoostiisa markaas ay ku tiraada ayuubow xanuunkan halka ku gaarsiiyay in ummadii iyo dadkeenii ay banaanka inoo soo tuuraan nabi ducadiisa la aqbala ayaatahe ilaahay ma noo baridaha ka qaada xanuunkan oo dadka ku dhex noqonay markaa buu ku yiraahdaa 70 sanaan barwaaqo ku soo jirnay ma inta yar baan u adkaysan kara laanahay buu yiri barwaaqadii buu xasuustay isagu waa sunnada ilaahay daa'iman qofka u fiirsada ma inta nicmad aan haysana ayaa badan mise inta dhibaatadu nagu dhacdo ayaa badan mid ka badan nicmada badan marka anbiyadu nicmaday eegeen mar walba dadna muncimka marka way ka xishoonayeen ilaahay way ka xishoonayeen marka abu xaaskiisu ku yiri 70 sano barwaaqo ku jirnay ma muddada yar baan u adkaysan kari laanahay ayadoo magaalada ku maqan maalin maalmaha kamida labadii dad isaga ugu dhaweeday qaraabadiisa ayaa marka u yimaadeen sheeday ka joogsadeen baa la yiri mid baa yiri marka waru dhawaanay meeno xanuunkiisu inuu nagu soo tacaadiyaan ka baqaynaaye malaha dambi wuxuu galay ninkani dadku aynan gelin ereygaasoo marka nabi ayuub uu maqlay kolkay ka noqdeen ayuu gurguurtay dadna meeshuu ku xaajoonayay markuu ku soo xaajooday geedkii uu ka yar dhaqaaqo xaggaabuu uga dhaqaaqay halkaabuu markaa ku ducaystay baa layidhi ducadiisana waatan qur-aanka ilaahay noogu sheegay fi suurati alanbiyaa waid naadaa وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أيوب عليه السلام ربي جيبه أرد واقي وربي جيبه لما ناجود أقيل دان درتو مركبه وحيري إله أنا قد بقى يسوق قالوا إتابته هذا يقول نكون نحرس لك وقلنا حرس مدامته إله نبقى يقعد بويري إله مركبه الدعاء يسوق كأقبله بالليل هل كي وجوجي بالليل اللقطة هذا اللقطة كله اركض برجلك سديد يتبصنا ننجي فيو حنوسنا أود جركيس كو جرتا دولك مركو حراتي بيو وكا كاني كرا وأودي يعني أدقو أسبابتي لك هالي ويان أنا كابيها سو صاريني لقت هذا يرضى قاجي بس أسبابتن الدنيا نركينا أردن نظام كإلهي بكون حجر أسبابتن سيدا جرك بني آدم الروح ذا يكون حجرته أيا أسبابتن الدون قادر كيسان نظام كإلهي بكون حجرة مركا نظام كإلهي إيش إنه ما قبنا يسوع قدرة إلهي بعالم كان معمول يسلك تبو النبي أيوب سعود قاجي للكو كعلي لا بدل لقوا دحلو ذي بيه كصابحين بالليل لا بقيلو ذبيا إلا وحال يري كم ما يرو إلا وحال يقول يا عم وما يلي جركيسي وعادي وعبي على الشيء جودها وحيد حنون كجزر دم بناك وقصبحي وصوك عبي مركلية حاسك سيبا مقالة كتمدي ويكوريكتي يدو حشونا يسامركا وحيتري وذي أيوب لورن جريو بكانها ومدة دوري تبصنا هلكا عن لجوغي وما أنت أنكتغي مقالة نقوم مقنايا ونشقتغي ميو دنتي ما دقاق باقاتي ولي بدل ليرنمدي سينا هذا قاعد كوكو أكاي فورمي سيب الله ده
markaasuu yidhi ayuubu aniga buu ka yidhi ana ayuub ayuubkii aad kaga tegtay sariirta dusheeda ee jiifay ee kici kari lahaa waa isagii ducaan ducaynay ducadii baa ilaah noo aqbalay buu yidhi istiqaama haddaa dadku diintooda ku sugnaadaan waxaad ogaataa xaaladdu hadday timaado xaaladdu wax daa'ima maaha nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam qisadiisii baa qur-aanku kuu qayxee dhegayso akhriso oo culammada weydiiyey boqor afartii nin ee adduunka u soo talisay nin ka mida ayuu ahaa weliba mulkigiisu ma ahayn mulkigan bini aadanka keliya ay haystaan mulki rabbaaniya buu ahaayoo ilaahay baa siiyey oo waxaa ka mida mulkiga nebi sulaymaan khalqiga adduunyada ku nool oo dhan baa la hoos keenoo loo sakhiray dabaysha ayaa loo sakhiray cafaariidda iyo jinka ayaa isaga u shaqaynaysay shayaadiinta ayaa aqalladana u dhisaysay badaha intay u dhaadhacaanna jawaahirtiiyo dhaymanka u soo saaraysay hadalka shimbirahoo dhan buu nebi sulaymaan uu yaqaanay wa qaala yaa ayuha annaasu cullimnaa mantaqa atayri wa uutiinaa min kulli shay inna haada lahuwa alfadlu almubiin waxushira lisulaymaana junuuduhu min aljinni waalinsi waatayri fahum yuusacuun xataa idaa atow calaa waadi nnamli qaalat namlatun yaa ayuha nnamlu idkhuluu masaakinakum laa yaxtimannakum sulaymaanu wajunuuduhu wahum laa yashcuruun fatabassama daaxikan min qowliha boqortooyaday ilaa halkaa gaadhsiisa maxaad u malayn quraan hadlaysa hadalkaygii la maqashiiye war boqor nuucaay adduunka ma jira ma soo maray may hadduu soo marayna waa sulaymaan calayhi salaam cid kale ma aha nebi sulaymaan nebigaas mulkiga intaa leg ilaahay siiyeyna ilaahay daacaddiisu ma dhaafin ilaahay dikrigiisa ma halmaamin hal maalin keliya qur-aanka ilaahay ku sheegay fii suurati saad waxaa la yidhi farduhu aad u jeclaa dabcan fardahana waan jecellahay fii kulli zamana farduhu waa shay qaaliya fardihiisii uu ku geli jiray ayaa sidaa loo soo hormariyey baa la yidhi saacaddu ilaahay dikrigiisa uu samayn jiray wasabbix bixamdi rabbika bilcashiyi waalibkaar saacaad waxaa jira ilaahay lala munaajoodo waa gellinka hore iyo gellinka dambe weeyaan waa inuu qofka mu'minku gartaa saacado waxaa jira ilaahay uu noo jideeyo la doonayo inaan adduunyada intoo ka imanno masaajidda soo galnoon ilaahay u dhowaanno ilaahay la munaajoono saacaddii dikriga uu samayn jiruu rabbigii la munaajoon jiray ayaa fardihiisa sidaa loo soo hormariyey faqaala innii axbabtu xuba alkhayri can dikri rabbii xataa tawaarat bilxijaab rudduuha calaya fatafiqa masxan bisuuqi walacnaaq waa ka ilahay qur-aanka ku sheegay fardihii baa la hormariyey wuxuu yidhi fardaha aadi hormariseen waxay iga mashquuliyeen ilaahay xuskii bay iga mashquuliyeen buu yidhi dikrigii aan ilaahay xuskiisa aan qalbiga markaan dikrinaya aan ka macaansanayey ayay iga mashquuliyeene kulligood ii soo celiyey buuhi ii soo celiya kurkaa ka wada jarayaaye waxlii wixii daacadda ilaahay ka mashquuliyey nebiyadu qoortay ka goynayeen innaga salaaddaan tukanaynay imise jeer baa dukaanadaynu naga mashquuliyeen dukaanadeenna weli ma bixinno ninkee baa u bixiyo odhan kara dukaankaasi mar alli markaan salaadda galaan ku sahwiyaa ee ilaahay dartii baan u bixiyey ma jira ma dhici karta ma dhici karto fardihiisii uu ku xaragoon jiray ee weliba jihaadka uu ku geli jiray ayaa markii sidaa loo hormariyey waxay ka mashquuliyeen oo qalbigiisii ay ilowsiiyeen macaankii markuu ilaahay xasuusanaya uu qalbiga ka macaansan jiray ilowsiiyeen markaa buu igu soo celiya ii soo celiyey buu oo maxaa dhacay soo celiya waa la soo wada qabtay qoorta ka wada gooya buu ilaahay bay iga mashquuliyeen daacaddiisii marka haddaad madax tahayna madaxda waxaa la doonayaa inay ku daydaan nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam mulkiga intaa leeguu haystay xaqi ilaahayna wuu ku gutay xaqii bini aadankana uu ku guto uu ku ilaaliyey baa la yidhi xaqi ilaahayna ma dayicin xaqii bini aadanku ay ku lahaayeenna ma dayicin
waxauna ka baxay adduunka isagoo nebi oo mursalo ilaahayna uu raalli ka yahay haka quraanka ilaahay ku sheegay istiqaama marka hadda dabaqad kasto muslimiinta kamida aad ku lug leedahay saadiinta ugu sugnaan lahayd daliil baa lagu hayaa daliil haddaad bukaana tahayna nebi ayuub baa u daliila nebi ayuub 18 sano bukaan ahaa geed hoos jiifay marna ilaahay taacadiisa iyo digrigiisa ma daynin nebi ayuub baa u daliila nebi ayuub 18 sano bukaan ahaa geed hoos jiifay marna ilaahay taacadiisa iyo digrigiisa ma daynin malik nebi rasuula waa la ikhtibaaray toddobadii hablooduu lahaa mar keliya laga wada dilay oo nafta laga wada qabtay iska sabray toddobadii wiiluu lahaana mar keliya israaceen oo iska sabray beerihii iyo tijaaradii iyo xooluhu lahaay oo dhan mar keliya laga qaaday oo iska sabray markaasaa jidhkiisii walibana xanuun lagu riday oo iska sabray xanuun nuuceeyaa gaadhay waxaa la yidhi jidhkii intuu dhammaaday harigga iyo lafahaas ku dheggan bas markaasaa wax ehela waxa u soo hadhay xaaskiisii markaasay qaraabadiisii ku yidhaahdeen ama magaalada adigu nooga bax ama annagu aan kaaga baxno may anaa inaga fududo inaga tegaya buuri way tukubisay bannaankaabay u saartay geed bay hoostiisa dhigtay 18 sano ayaa culammada qaar sheegaan ayuu geed hoos jiifay subaxdii bay ka tegaysay magaaladay u soo noqonayso dadkii u shaqayn jirtay aqalladay ka shaqayn jirtaa la yidhi wixii mushqaayad la soo siiyo intay ugu soo iibiso khubs iyo idaam ayay markaa nebiga ugu keeni jirtay geedka hoostiisa markaasay ku tiraahdaa ayuubow xanuunkan halkaa ku gaadhsiiyey in ummaddii iyo dadkeennii ay bannaanka inoo soo tuuraan nebi ducadiisa la aqbala ayaa tahee ilaahay maad noo barida ha kaa qaada xanuunkan oo dadkaan ku dhex noqonne markaa buu ku yidhahdaa 70 sanaan barwaaqo ku soo jirnee ma inta yar baan u adkaysan kara laanahay buu yidhi barwaaqadii buu xasuustay isagu waa sunnada ilaahay daa'iman qofka u fiirsada ma inta nicmad aan haysanna ayaa badan mise inta dhibaatadu nagu dhacda ayaa badan midka badan nicmada badan marka ambiyadu nicmaday eegeen mar walba deedna muncimka markaa way ka xishoonayeen ilaahay way ka xishoonayeen marka abu xaaskiisu ku yidhi 70 sanaan barwaaqo ku jirnee ma muddada yar baan u adkaysan kari laanahay ayadoo magaalada ku maqan maalin maalmaha ka mid a labadii dad isaga ugu dhoweeday qaraabadiisa ayaa markay u yimaadeen sheeday ka joogsadeen baa la yidhi mid baa yidhi markaa war u dhowaani mayno xanuunkiisa inuu nagu soo tacadiyaan ka baqaynaaye malaha dembi wuxuu galay ninkani dadku aynan gelin ereygaasuu markaa nebi ayuub uu maqlay kolkay ka noqdeen ayuu gurguurtay deedna meeshuu ku xaajoonaya markuu ku soo xaajooday geedkii uu ka yar dhaqaaqo xaggaabuu uga dhaqaaqay halkaabuu markaa ku ducaystay baa la yidhi ducadiisana waatan qur-aanka ilaahay noogu sheegay fii suurati alambiyaa waayuuba id naadaa rabbahu annii massaniya adurru wa anta arxamu araaximiin ayuub calayhi salaam rabbigiibuu u dhawaaqay oo rabbigiibuu la munaajoodu u qayla dhaandirto markiiba wuxuu yidhi ilaahu aniga dhib baa isoo gaadho itaabatee adiguna kuwa naxariista ka ugu naxariis badan baa tahee ilaahu dhibkaa iga qaad buu yidhi ilaahay markiiba ducadiisa waa ka aqbalay baa la yidhi halkii uu joogay baa lagu yidhi lugtaada dhulka ku dhifo urkud birijlika 18 sano nin jiifay oo xanuunsanaa awoodda jidhkiisa ku jirta ee dhulka markuu harraatiyey biyo uu kaga keeni karaa waa awooddee يعني أدقو أسبابتي لك هالي ويان أنا كابيها سو صاريني لقت هذا يرضى قاجي بس أسبابتن الدوية نركينا أودن نظام كإلهي بكون دحجر أسبابتن سيدا جرك بني آذاك الروح ذا يكون دحجرتو أيا أسبابتن الدون قادر كيسان نظام كإلهي بكون دحجرا مركا نظام كإلهي إيشي نمقبانا يسو قدرة إلهي بعالم كان معمولة سلوكتي النبي أيوب سعود قاجيي للكو كعليي لبدا لغو دحدو دي بيا كصوبحين بالله لبا إلو دو بيا إلنا وحال يدي كم يدو إلنا وحال يقول يا عم
maydhay jirkiisii waa caadi uu cabbay caloosha iyo gudaha wixii xanuun kaga jiro dhanba bannaanka uga soo baxay uu soo kacay mar keliya xaaskiisii baa magaalada ka timiday way ku wareegtay iyadoo xishoonaysa markaa waxay tidhi oday ayuub la odhan jiray oo bukaan ahaa oo muddo 12 sano halkaa aan la joogay oo maanta aan ka tegey magaaladaan ugu maqnaay oo aan u shaqo tegey miyuu dhintay ma dugaag baa qaatay weliba dhallinyarnimadiisiina adigu aad kuugu ekaaye formigiisii baad leedahay markaasuu yidhi ayuubu aniga buu ka yidhi ana ayuub kii aad kaga tegtay sariirta dusheeda ee jiifay ee kici kari lahaa waa isagii ducaan ducaynay ducadii baa ilaah noo aqbalay buu yidhi istiqaama haddaa dadku diintooda ku sugnaadaan waxaad ogaataa xaaladdu hadday timaado xaaladdu wax daa'ima maaha nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam qisadiisii baa qur-aanku kuu qayxee dhegayso akhriso oo culammada weydiiyey boqor 4 nin ee adduunka u soo talisay nin ka mida ayuu ahaa weliba mulkigiisu ma ahayn mulkigan bini aadanka keliya ay haystaan mulki rabbaaniya buu ahaayo ilaahay baa siiyey oo waxaa ka mida mulkiga nebi sulaymaan khalqiga adduunyada ku nool oo dhan baa la hoos keenoo loo sakhiray dabaysha ayaa loo sakhiray cafaariidda iyo jinka ayaa isaga u shaqaynaysay shayaadiinta ayaa aqalladana u dhisaysay badaha intay u dhaadhacaanna jawaahirtiiyo dhaymanka u soo saaraysay hadalka shimbirahoo dhan buu nebi sulaymaan uu yaqaanay wa qaala yaa ayuha annaasu cullimnaa mantaqa atayri wa uutiinaa min kulli shay inna haada lahuwa alfadlu almubiin وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها بقرتو يدي إلى هالكاقاتي سمحادو ملايين قرآن هذا ليس هذا الكيقل مغشيه war boqor nuucay adduunka ma jira ma soo maray may hadduu soo marayna waa sulaymaan calayhi salaam cid kale maaha nebi sulaymaan nebigaas mulkiga intaa leeg ilaahay siiyeyna ilaahay daacaddiisu ma dhaafin ilaahay dikrigiisa ma halmaamin hal maalin keliya qur-aanka ilaahay ku sheegay fii suurati saad waxaa la yidhi farduhu aad u jeclaa dabcan fardahana waan jecellahay في كل الزمان فرضه هو شيء غالية فرضه سي وكل جري أيا صدا الله صهور مريبا الليل ساعد إلهي ذكري سمين جري وصبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ساعد حاجر إلهي للمنا جودو وقال لك وريه قال لك الدنبوي أيام وإن وقفك مؤمن كقرتا ساعد حاجر إلهي ونوجد يلا دونيو إن الأدوية انتو كائمنو مساجد soo galnoon ilaahay u dhawaano ilaahay la munaajoon saacadii dhikriga uu sameyn jiray rabbigi la munaajoon jiray ayaa fardihiisa sidaa loo soo hormariyay فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق وكلا القرآن كو شيء فردهي بقى الهرمري وحوري فردها هذه هرمريسان وحي إيقام مشغوليين إلهي حسكي بيقام مشغوليين بيقول ذكرقي أن إلهي حسكيسا أن قلبك مركان ذكرنا أن كم عن سنة أي إيقام مشغوليين كل قود يسوع علي يقول يسوع علي كركا كوضا جرى يعني وحلي وحي طاعد إلهي كم مشغوليين نبياد وقورتك قوينيين inaga salaadan tukanaynay imise jeer baa dukaanadaynu naga mashquuliyeen dukaanadayna weli ma bixinay ninkeeba u bixiyo odhan kara dukaankaasi mar alle markaan salaada galaan ku sahwiyaa ee ilaahay dartii baan u bixiyey ma jira ma dhici karto fardihiisii uu ku xaragoon jiray ee weliba jihaadka uu ku gali jiray ayaa markii sidaa loo hormariyey waxay ka mashquuliyeen oo qalbigiisii ay ilowsiiyeen macaankii markuu ilaahay xasuusanay uu qalbiga ka macaansan jiray ilowsiiyeen
markaa buu igu soo celiya ii soo celiyay buu oo maxaa dhacay soo celiya waa la soo wada qabtay qoorta ka wada gooyay buu ilaahay bay iga mashquuliyeen daacadiisii marka haddaad madax tahayna madaxda waxaa la doonayaa inay ku daydaan nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam mulkiga intaa leegu haystay xaqi ilaahayna uu ku gutay xaqi bini aadankana uu ku guto uu ku ilaaliyay baa la yidhi xaqi ilaahayna ma dayicin xaqi bini aadanku ay ku lahaayeenna ma dayicin waxauna ka baxay adduunka isagoo nebi oo mursalo ilaahayna uu raalli ka yahay haka qur-aanka ilaahay ku sheegay istiqaama markaa haddaad dabaqad kastoo muslimiinta ka mida aad ku lug leedahay saa diinta ugu sugnaan lahayd daliil baa lagu hayaa daliil haddaad bukaanaa tahayna nebi ayuub baa u daliila nebi ayuub 18 sano bukaan ahaa geed hoos jiifay marna ilaahay taacadiisa iyo digrigiisa ma daynin nebi ayuub baa u daliila nebi ayuub 18 sano bukaan ahaa geed hoos jiifay marna ilaahay taacadiisa iyo digrigiisa ma daynin malik nebi rasuula waa la ikhtibaaray toddobadii hablooduu lahaa mar keliya laga wada dilay oo nafta laga wada qabtay uu iska sabray toddobadii wiiluu lahaana mar keliya israaceen uu iska sabray beerihii iyo tijaaradii iyo xooluhu lahaayoo dhan mar keliya laga qaaday uu iska sabray markaasaa jidhkiisii weliban xanuun lagu riday uu iska sabray xanuun nuuceeyaa gaadhay waxaa la yidhi jidhkii intuu dhammaaday harigga iyo lafahaas ku dheggan bas markaasaa wax ehela waxa u soo hadhay xaaskiisii markaasay qaraabadiisii ku yidhaahdeen ama magaalada adigu nooga bax ama annagu aan kaaga baxno may anaa iniga fududoo iniga tegaya buuhi way tukubisay bannaankaabay u saartay geed bay hoostiisa dhigtay 18 sano ayaa culummada qaar sheegaan ayuu geed hoos jiifay subaxdii bay ka tegaysay magaaladay u soo noqonayso dadkay u shaqayn jirtay aqalladay ka shaqayn jirtaa la yidhi wixii mushqaayad la soo siiyo intay ugu soo iibiso khubs iyo idaam ayay markaa nebiga ugu keeni jirtay geedka hoostiisa markaasay ku tiraahdaa ayuubow xanuunkan halkaa ku gaadhsiiyey in ummaddii iyo dadkeennii ay bannaanka inoo soo tuuraan nebi ducadiisa la aqbala ayaa tahee ilaahay maad noo baridaha kaa qaada xanuunkan oo dadkaan ku dhex noqonne markaa buu ku yidhahdaa 70 sanaan barwaaqo ku soo jirnee ma inta yar baan u adkaysan kara laanahay buu yidhi barwaaqadii buu xasuustay isagu waa sunnada ilaahay daa'iman qofka u fiirsada ma inta nicmad aan haysanno ayaa badan mise inta dhibaatadu inagu dhacda ayaa badan midkaa badan nicmadaa badan marka ambiyadu nicmadday eegayeen mar walba deedna muncimka markaa way ka xishoonayeen ilaahay way ka xishoonayeen markaa buu xaaskiisii ku yidhi 70 sanaan barwaaqo ku jirnee ma muddada yar baan u adkaysan kari laanahay ayadoo magaalada ku maqan maalin maalmaha ka mid a labadii dad isaga ugu dhoweed ee qaraabadiisa ayaa markay u yimaadeen sheeday ka joogsadeen baa la yidhi mid baa yidhi markaa war u dhowaani mayno xanuunkiisa inuu nagu soo tacadiyaan ka baqaynaaye malaha dembi wuxuu galay ninkani dadku aynan gelin ereygaasuu markaa nebi ayuubuu maqlay kolkay ka noqdeen ayuu gurguurtay deedna meeshuu ku xaajoonayay markuu ku soo xaajooday geed kale geedkii uu ka yar dhaqaaqo xaggaabuu uga dhaqaaqay halkaabuu markaa ku ducaystay baa la yidhi ducadiisana waatan qur-aanka ilaahay noogu sheegay fii suurati alambiyaa وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أيوب عليه السلام ربي جيبه أدواقي وربي جيبه لما ناجوده أقيل دان درتو مركبه وحيري إله أنا قد بقى سوى قالوا إتابته هذا كنا كوا نحرس لك وكنا حرس بدم باته إله نبقى إيجا قاد بويري إلهي مركبه دعاء سوى كأقبله بالليل هل كي وجوجي بالليل لقطة تروح كودفو اركض برجلك 18 سنة ننجي فيو حنوسنا awoodda jirkiisa ku jirta ee dhulka markuu haraatiyo biyo uu kaga keeni karaa waa awoodee yani adagu asbaabtii la kaalay weeyaan anaka biyaha soo saarayne
lugtaada yar dhaqaaji bas asbaabtan adduunyadan arkayna oo dhan nidaamka ilaahay baa ku dhex jira asbaabtan sida jirka bini aadanka ruuxdu ay ugu dhex jirto ayaa asbaabtan adduunka aad arkaysaa nidaamka ilaahay baa ku dhex jira marka nidaamka ilaahay isheennu ma qabanayso qudradda ilaahay baa caalamka maamulaysa lugtii buu nebi ayuub saa u dhaqaajiyey dhulkuu ku celiyey labada lugood dhexdooda biyo ka soo baxeen baa la yidhi laba iloodoo biyaa ilna waxaa la yidhi ku maydho ilna waxaa lagu yidhi acab uu maydhay jidhkiisii waa caadi uu cabbay caloosha iyo gudaha wixii xanuun kaga jiro dhan baa bannaanka uga soo baxay uu soo kacay mar keliya xaaskiisii baa magaalada ka timiday way ku wareegtay iyadoo xishoonaysa markaa waxay tidhi oday ayuub la odhan jiray oo bukaan ahaa oo muddo dhowr iyo 10 sana halkaa aan la joogay oo maanta aan ka tegey magaaladaan ugu maqnaayo aan u shaqo tegey miyuu dhintay ma dugaag baa qaatay weliba dhallinyarnimadiisiina adigu aad kuugu ekaayo formigiisii baad leedahay markaasuu yidhi ayuubu aniga buu ka yidhi ana ayuub ayuubkii aad kaga tegtay sariirta dusheeda ee jiifay ee kici kari lahaa waa isagii waan ducaynay ducadii baa ilaah noo aqbalay buu yidhi istiqaama haddaa dadku diintooda ku sugnaadaan waxaad ogaataa xaaladdu hadday timaado xaaladdu wax daa'ima maaha nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam qisadiisii baa qur-aanku kuu qayxee dhegayso akhriso oo culammada weydiiyey boqor 40 nin ee adduunka u soo talisay nin ka mida ayuu ahaa weliba mulkigiisu ma ahayn mulkigan bini aadanka keliya ay haystaan mulki rabbaaniya buu ahaayo ilaahay baa siiyey oo waxaa ka mida mulkiga nebi sulaymaan khalqiga adduunyada ku nool oo dhan baa la hoos keenoo loo sakhiray dabaysha ayaa loo sakhiray cafaariidda iyo jinka ayaa isaga u shaqaynaysay shayaadiinta ayaa aqalladana u dhisaysay badaha intay u dhaadhacaanna jawaahirtiiyo dhaymanka u soo saaraysay hadalka shimbirahoo dhan buu nebi sulaymaan uu yaqaanay wa qaala yaa ayuha annaasu cullimnaa mantaqa atayri wa uutiinaa min kulli shay inna haada lahuwa alfadlu almubiin وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها بقرتو يدي إلى هالكاقاتي سمحادهم ملين قرآن هذا ليس هذا الكيقل لما غشيه واربقر نوعاي أدونك مجرى ما صومري مي هدو صومرين وسليمان عليه السلام عد كلمه نبي سليمان نبي قاس ملكك انت لك إلهي سيينا صع إلهي طاعة دي سمدافن إلهي ذكرك سمها المامن حل مالين كلية قرآن إلهي كشيء في سورة الصاد وعلى فرضه آذو جعلا طبعا فرضها أنا وأجعلها في كل الزمان فرضه هو شيء غالية فرضه سي وكوكل جري أيا صلى الله صهور مريي بالليل ساعد إلهي ذكرك وسمين جري وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ساعد وحاجر إلهي للمنا جودو وقال لك وريه قال لك الدنبوي أيام وأنه قفك مؤمن كقرتا ساعد وحاجر إلهي ونوجد يلا دونيو إن الأدوية انتو كإيمانو مساجد الصوغ لون إلهي ودوانو إلهي لمنا جودو ساعدي ذكرك وسمين جرو ربك لمنا جون جري أيا فرضه سدا الله صهور مريي فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق وكي لا يقرأك كل شيء فرضه بالهرمري وحول فرضها هذه هرمرسان وعي إيقام مشغوليا إلهي حسكي بيقام مشغوليا بيولي ذكرقي أن إلهي حسكيسا أن قلبك مركان ذكرنا أن كم عن سنة أي إيقام مشغوليين كل قود يسوع عليه يقول يسوع عليه كركا كوضا جرى يعني وحلي وحي طاعد إلهي كم مشغوليا النبيات وقورتك قوينيين إنك صلاة دان تكني